dhalinyaradu saddex u qaybsamaan. kow shabaabun mustaqiim, nin dhalinyaro toosan aqal wacan buu ka soo baxay ama ilaahay baa baday toosiyay, waa toosan yahayo isaga isdiraya, waa cibaadaysanaya, ilaahay buu ka cabsanaya, diintu ku dhaqmaya, dantiisu yaqaana. shabaabun mustaqiim waa nin dhalinyaro oo toosan. ka labaad shabaabun munxarif waa nin dhalinyaro laakiin inaga maaha, waa weecsan yahay, salaaduu ku liitaa, balbalwada iyo waxaasuu isticmaalaa, macaasi iyo xumaan buu ku dhex jiraa, waddadii wacnayd buu ka baydhsan yahay. ka saddexaad shabaabun mutaxayir waa mid wareersan, xaggana maaha, kuwa toosanna kuma jiro, kuwan dee aanbadayna kuma jiro, meel dhuxuu dhex ciyaarayaa. maalin waa tukanayaa, jaamaca usbuuc buu soo xaadirayaa, qur-aankii buu akhrinayaa, waa wardinayaa, gas haddana waa gooy, wixii kuwii kaloo la miisanaya ku dhex jira. maalinba qol la shaahaya, xaalkiisu ma degana, wuxuu ku leeyahay waan wareersanahayo, garanba maayo waxaan sameeyo. waa caynkano isaga iswaalaya de, qofku hadduu iswaalana dee u waalanaya. marka inaad ka baydho, kuwa baydhsanna aad ka baydho, kaa wareersanna aad ka baydho, aad noqotid nin dhalinyaro oo toosan. ilaahay ishuu kugu haya subxaana wa tacaala. markaad dadaashid oo qalbigaagu wacan yahay oo dadaalkaagu wacan yahay, ku bari taaraya ilaahay subxaana wa tacaala, horaa laguu dhigayaa, xagaagaagaa kordhaya.